Assalaamu calaykum. Eclipse madoobaad. Ereyga eclipse wuxuu ka yimaaday erey Greek ah eclipsis oo macnihiisu yahay ka tegid ama hoos u dhac. Mathalan, waxaan dhihi karnaa qorax madoobaad waxaa tegay iftiinka qoraxda. Eclipse waa marka uu shay ka xiro shay kale waxa uu arkayay. Dhulka aan ku noolnahay wuxuu leeyahay labo madoobaad: qorax madoobaad iyo dayax madoobaad. Qorax madoobaad wuxuu dhacaa marka dayaxa uu istaago dhulka iyo qoraxda dhexdooda, taasoo ka dhigan in iftiinka uu dhulka heli lahaa uu xiro dayaxa. Madoobaadka ma laga arkayo dhammaan dhulka, laakiin keliya waxaa laga arkayaa meesha hooska dayaxa ku aadan. Meelahan waxay u ekaanayaan in qoraxda ay ka tagtay, waxayna galayaan xaalad mugdi ah. Waxaa jira 3 nooc oo ah hooska dayaxa: umbra, penumbra, and umbra. Umbra waa qayb ka mid ah hooska dayaxa, taasoo dayaxa si kaamil ah u qarisa qoraxda. Penumbra waa ereyada hooska, keliya qayb ka mid ah dayaxa ayaa hor istaagaya qoraxda. Antumbra ereyada hooska ka baxsan meesha umbra. Antumbra dayaxa si kaamil ah ayuu u hor istaagaa qoraxda, laakiin ma daboolo dhammaan qoraxda. Tusmada qoraxda waxaa laga arki karaa hooska dayaxa. Micnaha umbra waa in meesha qorax madoobaadka ka jiro si kaamil ah ay u noqoto mugdi. Penumbra waa in meesha qorax madoobaadka ka jiro ay leedahay wax yar iftiin ah. Antumbra waa dayaxa markay daboosho qoraxda, laakiin iftiinka laga arko geesaha. Qaybaha qorax madoobaadka: total, partial, annular. Total oo ah dhammaan waa marka dayaxa si kaamil ah ay u daboosho qoraxda, hooskuna waa umbra. Partial oo ah qayb waa marka keliya qayb ka mid ah qoraxda la qariyo, hooskuna waa penumbra. Annular waa marka dayaxa ay daboosho qoraxda, laakiin laga arko geesaha dayaxa, hooskuna waa antumbra. Ha eegin qorax madoobaadka. Waxaan ka waaninaynaa in aad si toos ah u fiiriso qoraxda madow, sababtoo ah fallaaraha dhibaatada leh ee qoraxda ayaa weli waxyeeleyn karo indhahaaga. Dayax madoobaad wuxuu dhacaa marka dayaxa uu dhaafo hooska dhulka. Sidoo kale wuxuu leeyahay isla 3dii nooc uu lahaa qorax madoobaadka: total oo hooskiisu ah umbra, partial oo hooskiisu ah penumbra, antumbra oo hooskiisu ah annular. Dayax madoobaadka ayaa waxaa laga arkaa meelo badan marka loo fiiriyo qorax madoobaadka. Dayax madoobaadka gabi ahaan ma aha mugdi. Dayaxa wuxuu soo celinayaa qayb ka mid ah iftiinka qoraxda kaasoo joojiyay atmosphere-ka dhulka. Iftiinka ay soo celinayso waa mid guduud ah, kaasoo ku sababaya dayaxa in ay noqoto mid guduud u eg. Xaqiiqooyinka: qorax madoobaadka ugu dheer wuxuu socdaa 7 saac iyo bar. Qorax madoobaadka nooc walba ee dhaca dhulka sanadkii waa 5. Qorax madoobaadka dhammaystiran oo midka totalka ah wuxuu dhacaa sanad iyo haaf walba. Kuwaan waa xaqiiqooyin ay sameeyeen dad. Insha Allah isku day inaad sameyso wax tijaabo ah. Kuwaan waa baaritaan ay sameeyeen dad, laakiin cilmiga Allah ayaa iska leh. Laakiin muslim ahaan anaga waxaan faray inaan tukano salaatul khusuuf iyo salaatul kusuuf. Waxay idinla jeclaaday inaan idin soo gudbiyo muuqaalkan. Si aad u hesho muuqaalo badan oo ku xiiso geliyo, fadlan ku soo biir bahda kanaalka Somali Science. Mahadsanidin.